wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab uu maanta ka dhacay deegaan u dhow Afgooye iyo Walaweyn. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay jidka u galeen ciidanka iyagoo adeegsaday qarax kadibna jidgal. Dagaalkaas ayaa markii dambe ku soo fiday dhinaca degmada Afgooye. wararka dhinaca amniga waxa ay sheegayaan in uu jiro khasaare soo gaaray askarta iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. sidoo kale waxaa la tilmaamaya in gaadiidka dagaalka halkaasi ay ku gubmeen, waxaana ilo xogaal ahi ay VOA u sheegeen dagaalka uu sababay khasaare nafeed oo soo gaaray dad rayid ah. ciidanka militariga ee la beegsaday weerarka ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen guutada 7aad ee qaybta 6aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. isla Soomaaliya wararka ka imaanaya ayaan ku guda jirnaa dhinaca Puntland wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in kooxo ku hubeysan bastoolad ay saaka duhurnimadii ay toogasho ku dileen askari ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka taraafikada ee maamulka Puntland. goobta dilka uu ka dhacay ayaa ahayd bartamaha magaalada Boosaaso, waxaana sidoo kaleeto ay ku dhoweed xarunta dowladda hoose ee degmada Boosaaso. kooxdii falkaasi dilka ay geysatay ayaa goobjoogayaal ku sugan halkaasi ay VOA-da u sheegeen inay ka baxsadeen meeshaasi, mana jirto wax war ah oo laamaha amniga ee gobolka Bari ay weli ka soo saareen arrinta dilkan. toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa gudaha magaalada Boosaaso waxaa ka jiray dilal isdaba joog ah oo lagu qaarajinayay shakhsiyaad ka tirsan ciidamada maamulka Puntland, mana jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay ama loo soo qabtay kuwii ugu dambeeyey. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay in Iran ay u muuqato inay dabcayso kadib weerar gantaalo ay ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Ciraaq, halkaas oo wax khasaare nafeed la sheegay inaysan ka dhalan. dhammaan ciidamadeena way bad qabaan, isla mar ahaantaasina waxyeelo yar ayaa gaartay saldhigyada. ciidamadeena weyn wax walba diyaar ayay u yihiin, ayuu yiri Trump oo khudbad u jeediyey shacabka Mareykanka mar uu ku sugnaa aqalka cad. waxa uu intaasi ku daray in Iran ay u muuqato inay dabcayso, taas oo ah buu yiri wax wanaagsan dhinacyada ay arrintan khusayso iyo dunida oo dhan. cid Mareykan ama Ciraaqi ah kuma waxyeelo ka soo gaartay ayaanan jirin, ayuu yiri madaxweyne Trump weerarkaas. Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka ay cunaqabateyn dheeraad ah oo daran ku soo rogi doono Iran, hase yeeshee ma uusan sheegin wax argudasho oo ka dhan ah weerarkii gantaalada, taasoo khubaradu ay u arkeen jawaab miisaaman. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo maanta ka dhacay deegaan u dhexeeya Afgooye iyo Walaweyn. dagaalkan ayaa dhacay kadib markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay jidka u galeen ciidanka iyagoo adeegsaday qarax kadibna jidgal. wararka dhinaca amniga waxay sheegeen inuu jiro khasaare soo gaaray askartii maleeshiyaadka Shabaab. iskoorimaadyadan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya qaybta 6aad iyo kooxda Shabaab waxay ka dhaceen duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. iskoorimaadka hore wuxuu ka dhacay deegaanka Doonka kadib markii weerar kadiisa lagu qaaday kolonyo ciidamada militariga qaybta 6aad oo marayay deegaankaasi, waxaana lagu soo waramayaa ciidamadaasi la weeraray inay galbinayeen booyad nooca shidaalka qaada oo loo waday ciidamada degan garoonka Beledoogle. iskoorimaadka labaad wuxuu ka dhacay xero ciidamada militariga qaybta 6aad ay ku leeyihiin agaarka buundada weyn ee degmada Afgooye. goobjoogayaal ayaa ku waramaya in kooxda Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday xerada ciidamada militariga degmada Afgooye ay gudaha u galeen xerada, ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi. wararka qaar ayaa waxay cadeynayaan inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada la weeraray iyo kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. ma ahan markii ugu horeysay kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadaan fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed. dabayaaqada bishii hore ee September sanadkii tagay 2019 ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab weerar noocan ay ku soo qaadeen xero ciidamada militariga ay ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud Buuray Haraw oo gobolka Baay ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.